مدحدا خطر واي مدحدا ان gabdhahoodii familiyadu waa kala afuuftaan ninka madaxda ah dadka kale inuu arkin baa laga yaabaa laakiin madaxda kale ay is arkaan ay kulmaan family members kooda ay kala sukaansaani kala afuufaan runta idin sheegay my friend madaxweynaha hadda South Africa jooga madaxweynaha South Africa Ramaphosa بريجي أن سو أفريقيا جوجي زما ومدحوينها كاها أنيجا مانديلا مركو مدحوينها كاها مركو أن تابون بيكو مدحوينها كاها مركو زما مدحوينها كل واحد جوجي مركا مدحوينها رامافوزا مركا سروقها وزير مية وإحنا عاسوها وننكي حبسي كسو داي مانديلا ننكا هذا جوجي ANC member strong هو ما قلت لكن waxaa ooga xaqoq badnaa Thabo Mbeki iyo Zuma ninkii ku xigoo ninkan ahaa marka sheekada waxaan ka wadanaa Zuma wuxuu afuufay gabadhii Thabo Ramaphosa gabadhiisii madaxweynaha hadda South Africa gabadhiisii waxaa afuufay Zuma balwad kala male laakiin naag lama tusi karo naag ma dhoocil ma bala tusi karaba 40 naagood hadda foodi xaasaskiisa waa 40 foodi bayn زما وحولي حافظن أولي and house white house يوحى اسمها village ما ده مثل location مثل مقالة بولي ما قاعد بايله مقالة ردبنا قرنا مقالة نوعي أو airport أو school له أو mall له والله أفرت الناقود يال كيس وحيد دقين مقالة دن يدقين زما ديارة كوسو دي حافظيس مركا صاحب كان رامافوزا قبل يسوق دقاقة قراعي اسكاندل انه خطوة ولا يرى وضوضو ولا امس مركا دوعلير لما تص جامعة waxaan oo dhan Zuma strong man وافو جربوا ku qaaday gabar ba hadda lama tusay gareer gabadhiisa ay saaxiib yihiin oo HIV positive abu ku qabtay markaas waxa lagu yiri in madaxweyne gabadha aad u tagtay gabar AIDS qabtay ahayd soo kama baqaysi inaad qaadid ay tag quick shower qaat kulaha war عادي hore la wareysanahay waan ka qabaystuuri janaabadeedii iyo wasaqdeedii iyo AIDS wuxuu markiiba daweysay raaceen kuwaas marka gabadhiina waxay cadeysay Zuma iyadoo AIDS qabtayna oo tagtay una condom isticmaalin Zuma waa nooli waa kana marka madaxda waxay kala afuuftaan in family members ka dadka isku siyaasadda ah waa isla raadsanaya waa isafuufaya because they don't have public access umale dad kala ma arkaan madaxda la arkaysa gabdhahooda wiilashooda iyaga xaasaskooda waxaan ay kala afuufanayaan waad aragteen in Bush oo hagareynaya oo dhunkanaya Michel marka waxyaalo badan oo idinka qarsoon baa jira dhinaca madaxda waa is afuufan runta idin sheegay madaxda xaasaskooda waa isku daba maraan kama hadlan arrintaas qof ka hadli karana male oo jeeyay ka ahayd